madaxweynuhu wuxuu la kulmay madaxda faran oo dalalka islaamka iyo dalalka carabeed intaba waxyaabaha laga wada hadlay ugu weynaana ajenda halka loo yimid wuxuu ahaa sidii la isaga kaashan lahaa la dagaalanka xagjirnimada iyo argagixisada dadkii uu la kulmay madaxweynaha waxa kamid ahaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo shirka markii uu gabagabay kadib ay waqti kooban wada hadleen marka waxay ka wada hadleen in kaalinta Mareykanka oo arinta ka geysan karo kulankii yaraa madaxweynaha labada madaxweyne ay yeesheen waxay ku lafagureen sidii arinta loo sii dardargelin lahaa dawladda Mareykankuna horena waa noo muujisay haddana waxay noo sii adkeeyeen inay arinta wax weyn nagala qayb qaadan doonaan dawladda Mareykanku waxay noo muujisay in 100% ay dawladda Soomaaliyeed la garab taagan tahay taageero buuxda sidii looga adkaan lahaa qolada argagixisada amiirka qadaran sidoo kale madaxweynuhu la kulmay intii uu shirka socday wuxuu naga codsaday inaan casuumaad oo horey noogu soo diray ayaa jirtay dawladda qatar waxay kamid ahayd dawladaha ugu horeeyay madaxweynaha ku casuumay inuu dalkooda booqdo laakiin nasiib uma helin wuxuuna tiim buu nagu adkeeyay waxaan